رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمان مرتدى مشى فبذا حفلة السوق الكلي روح والله مجلسة هي مقام كيسو السلام عليكم. وقت اللي يصير يمسح بحياتنا الهبل الأرض. هاي الوقت يعطيك أمام مركز فايدة استنتي غيرتها. مركز وما سنتهين ولا ما ننتهين. حفلته وحيقوم كنتن تهاي سودوين تا وبركة والعبد الله عاد بقول سودوين لنا كي يسودو ضد كاري كاري لحظة سودو ضل كاري سودو عاد بقول سودوين لنا سوى الشرا أنت كذب كل وحي كله ضد كقال لي زورا لكن waxaan naga aadan anaga culimo ahaan marka la yiraahdo waxaan ku leenahay laba qodob saddex qodob qodobka koowaad waxa weeye sida la sheegay ba waxaan calaamad iyo ramsi u tahay nabadda kelimadaasi aad baan u jeclaystay in aad ku dadaasho nabadeynta ummadda Soomaaliyeed iyo sidii la isugu keeni lahaa maanta dadka meesha fadhiya xafladda fadhiya sida la sheegay waa Soomaali oo idil bal Soomaali way ka baxsan tahay ummada kale jooga marka inta soo dhaw waxay yimaadeen soo dhaweynta macnaheedu waxa weeye reer kaliya ma matashida Soomaali oo dhan baad matashaa oo aad wabar iyo boqor u tahay marka inaad maslaxada ummadda Soomaaliyeed guud ahaan hormuud ka noqoto ayaan kugula dardaarmaynaa ilaahayna kugu kaalmeeyo qodobka labaad ee aan jeclahay isagana inaan tilmaamo wax weeye maadaama aad hoggaan dhaqan tahay hoggaamada dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ragga ugu waaweyn aad ka mid tahay dhaqankii Soomaaliyeed wax badan oo saxsan baa jira wax badanna waa khaldan yahay wixii khaldan sidii dib loogu sixi lahaa ayadana inaad hormuud u noqoto laana waxa weeye ummaddu diin bay leedahay wadad muslimiina dhaqanka soo jireenka ah wixii saxsanna in la xoojiyo wixii khaldanna in dib loo saxo oo idinka hoggaanka dhaqanka aad dib u saxdaan waa muhiim waaye idinkoo kaashanaya culimada iyo aqoon-yahanka kaashanaya waxaa ka mid ah dhaqamadeena qaybo ka mid ah dumarkaa ku dulman waxaa ku dulman dadka tabarta dareen baa ku dulman marka dhaqamadeennii in dib loogu noqdo wixii khilaafsan shareecada laga saxo arrintaana waa kaa codsanaynaa insha Allah inaad hormuud u noqoto waxaan ku gabagabeynayaa soo dhawow mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad baa soo dhaweynaynaa Soomaali madaxdeedii culimadeedii hoggaankeedii dhaqanka rag iyo dumarba looma kala hadhin soo dhaweyntaada soo dhawow baan ku leenahay insha Allah ta'ala la taliyayaashaada waa rajaynayaa inay ku jiraan dad culimo ah hadayna ku jirinna taliyayaasha ku darso nin culimo insha Allah ta'ala oo dhanka wixii diinta ku saabsan iyadana insha Allah ta'ala taliya kaaga noqda aad baan ku soo dhaweynaynaa jazakumullahu khayran wa antum mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi